jaaliyada Soomaalida ee qurba joogta ah ayaa u xanqal taagaya siyaasadda Soomaaliyeed iyo turxaan bixinta qaabka geedi socodka looga bixi lahaa dawlad ku meel gaar ah baarlamaanka dhawaan la soo soocay iyo doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa ay Soomaalidu si aad u hadlayaan marka ay qurbaha joogaan xafladan ayaa kamid ah kuwa lagu soo dhaweynayo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo waliba farxadda Soomaalidu ay u qabaan kuwa qurba joogta ah sida baarlamaan loo soo xulay si daacada oo xor ah oo ay daawanayeen markii TV-yada qaranka iyo kuwa Soomaalidu ay leedahay sida gaarka loo leeyahay laga soo daayay tani waxay tusaale u tahay sida Soomaalidu ay ugu hanqal taagayso u doonayso in Soomaaliya mar un ay ka baxdo dhibaatada haatan haysata xafladan waxa soo diyaariyay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska waxaana ay si aad ah ugu taageereen gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari xafladan waxaa ka hadlay qaar kamid ah oday dhaqameedyada iyo dadka aqoon-yahanada ee ku dhaqan magaalada Manchester waxaana ay si goongooniga u taabteen sida ay ugu faraxsan yihiin ka shakhsi ahaan iyo jaaliyad ahaanba doorashada baarlamaanka ee goordhow la soo xulay inta waa ogtiin xafladan waxaan ugu talagalnay in maaragtay aan taageero buuxda ku siino baarlamaanka cusub ee la doortay iyo gudoomiyihiisa iyo labada gudoomiye ku xigeen wad ogtiin 42 sano kadib magaalada Muqdisho waxa ka dhacay wax maaragtay ummadda dhan aynan maaragtay markaas ayna aamini karin adduunka dhan aan laga aamini karin in doorasho xor lagu qabto oo baarlamaan lagu doorto si dimuqraadi ah oo adduunka dhan caalamka dhan meel walba telefisyonaha ay dadka ka wada fiirihayeen ummadda Soomaaliyeedna maanta ay hani weyn u qabto in ay wadankoodii dib ugu laabtaan marka insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo baanta barnaamijkan arintaas ay ku saabsan yahay anoo matalayo odayaasha magaalada Manchester oo kana mid ahay haddaba waxaan rabaa inaan hambalyo u diro iyo bogaadinba gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenada oo si dimuqraadi ah loo doortay waxaana kale farxad leh in markaan la dhisay baarlamaankan kadibna la dhisi doono dawlad inay muxuu ahaay ka baxnay ku meel gaarnimadii oo noqnay dawlad oo dhisan taas weyn ah baarlamaankan iyo gudoomiyaha cusub iyo gudoomiye ku-xigeenaduna waxaan rajaynaynaa inay qoliyii hore ay ka duunaa doonaan ay si wanaagsan oo isku xirnaan oo wadajir ay u shaqayn doonaan waxaan rajaynaynaa insha Allah hoggaan fiican oo daacad ah oo meeshaas ka sii dhaqaajiyo oo meel fiican gaarsiiyo 4 sano soo socoto in Ilaahay noo keeno waxba tarimayso imaartay hebel baan jecelnahay muhiimaddu waxa waaye shakhsi daacad ah wax wadi karo ummadda isu keeni karo inaan helnaa muhiim ah oo Soomaali midayn karo wal ogyahay maanta ninka la doortay gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari aniga wala soo shaqeeyay aqoon badan aan u leeyahay agaasimo guud oo soo noqday wasiir ku-xigeen oo soo noqday wasiir oo noqday waa in la isku halay karo laga sii xakar maanta waxaan badan ku qaadana ka jeefateen baarlamaanka inuu dhisan yahay anigu waxaan si gaar ah ugu adkeynayaa baarlamaankan inay laba arrimood u istaagaan oo aan filay labada arrimood inay ummadda Soomaaliyeed aad ugu baahan yihiin inay ku adkeeyaan oo kula taliyaan madaxweynaha iyo dawladda la soo dhisi doono inay wada hadal la furaan kooxaha mucaaradka tan labaad inay u istaagaan in ummadda Soomaaliyeed u ilaaliyaan hantidooda oo ay ka celiyaan dawladaha doonaya inay boobaan ay ka faa'iideystaan xilliga adag ay ummadda Soomaaliyeed marayso caaw waxaan halkan isugu nimid anoo ku hadlayo codka gabdhaha Soomaaliyeed ku nool magaalada Manchester waxaan jecelnahay inaan hambalyo u dirno kal iyo laab ah gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Professor Maxamed Cismaan Jawaari
waxaan leeyahay baarlamaanka maanta jira hal dardaaranaan kula dardaarmaya midooba oo ha noqonin kii daraad isqabqabsanayo oo kale ka xurooba qabiilka ka xurooba laaluushka ka xurooba nin jeclaysiga keebaa wadanka wax u tari kara keebaa wax raba keebaa maanta ka saari kara dhibaatadan maanta Soomaaliya waad ogtihiin ceel bayt cirbad ceel ku dhacdo kale ahayd maanta waxay taagan tahay ceelka korkiisa ayay taagan tahay yaa ka sii wadi kara meesha oo ka dhaqaajin kara loo baahan yahay caawa meeshaan aan isku nimid xafladan oo aad u qiimo leh farxad reer Manchester odayaashii nabadoonadii manjaaliyadii dhan ay isku timid halkaan oo meeshan hambali loogu diri doono gudoomiyaha baarlamaanka cusub Jawaari iyo labadiisa ku xigeen Jeylani Ikar oo reer Banaadir ah oo markii ugu horeyso oo baarlamaanka reer Banaadir ka soo qayb galeen alxamdulillah taasila ma hadii weeye maanta alxamdulillah rabbil alamin waxaan ka ogsaheena dadkan oo baarlamaanka ku jiraan soodkiina ku dheelina soodkiina masa lacag ku doorsanina waa dadkii lacag wadan dambiil ka tahadlar ahaada waa nin dictore xafladan waxaa lagu dhigay magaalada Manchester oo ku taala dalka Ingiriiska waxaana soo diyaariyay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Manchester iyagoo ugu talagalay soo dhaweynta iyo sida ay ugu faraxsan yihiin gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee dhawaan la soo doortay Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari iyo labadiisa ku xigeenood waxaana ay si cad ugu xanqal taageen isla markaana ay sacabada ugu tumeen sida ay u soo dhaweynayaan uga dhursugayaan doorashada la doonayo bishan gudaheeda in lagu soo doorto madaxweyne cusub Cabdirasaaq Socoto TV-ga qaranka Soomaaliyeed magaalada Manchester dalka Ingiriiska